بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلى يوم هذا dugsigan aad saaka soo booqateen waa dugsiga sare ee maxamed mooge secondary school. warbixin yaroo kooban haddaan idinka siiyey dugsigan runtii dugsigan waxaa la aasaasay primarygiisa in 1999, secondarygiisana waxaa la aasaasay 2007 runtii. lodkii ugu horreeyay wuxuu ka qalin jabiyey 2011. waxaa maanta ay marayaan lodkii lixaad bay marayaan ee ka qalin jabiyey dugsigan sare ee maxamed mooge secondary school runtii. dugsigan ardaydiisu waxay gaadhayaan ugu badnaan ilaa 400 runtii. ardayda dugsigan waxaan u kala saarnay habla iyo inamo, waana dugsi dawliya. hablaha tiradoodu waxay gaadhaysaa 180, inamadana waxay gaadhaysaa 220. sidaa daraaddeed waxyaabaha iskuulkani adeegyada uu iskuulkani u qabto bulshada runtii aad bay u fara badan yihiin. gelinka dambe halkan waxaa ardayda waxaa loo dhigaa 10 supplementary lessons, waa la kaabaa dhammaan maadooyinka dugsiga laga dhigo gelinka hore ayaa gelinka dambena lagu celiyaa. wax kaloo dugsigan uu leeyahay arday boodhan ah oo halkan saanbendis doono seexata runtii. habeenkii bay joogaan, waa ardayda form 4-ka ah. ardaydu way soo noqdaan, macallimiintu ilaa habeenkii bay soo noqdaan. halkan waxyaabahaanu ardayda u qabano wax ka mid a servicekaan u qabano inuu arday waliba haysto boog ku filan. tusaale ahaan waxa ah booggaas waa boog edited ah, waa boog dhammaan servicekii ku base garaysan. ardayda taya ahaan xagga aqoonta runtii way wanaagsan yihiin runtii. kaalmaha sare mar baanu nimi runtii kaalinta 9aad ee jamhuuriyadda. inta ka dambeysa ama ayadaan ugu badano ardaydu aad bay dadaalkooda wacay runtii. akhlaaq ahaan ardaydu si wacan bay wada xiireen. tusaalaan sidaan u xiiranahay bay wada xiireen. saadimkaa kusii tusi doono hal arday oo dhaqan xumaa oo dugsigeenan jooga ma jiro runtii. surwaalada yare la dhuudhube lala bacyo xaasaa la iskaga saara ma jirto. ardayga rules and regulations nationalkan yaala rulisku ardayga uu qabsanaya. tusaale ahaan waxaa ardayga la odhanayaa this is our rule, waa qodobada ardayga aan ku hagayno. tusaale ahaan maxaa nooga yaala ardayda dagaalka, amar diidada, aflagaadada ah, waxyeelaynta hantida dugsiga. isla ardaygii baa soo iibinaya waxyeelada geystay. absenka 2 cisho ah toddobaadkii ardaygu waalidkii baa loo yeedhayaa. sharabaada la-aan ama sharabaada gaagaaban inantaas waabay celis ilaa intay soo xidhanayso. diin cay iyo nabi cay iyadu totaliba wax weeyaan ardaygaasi waa waxa weeye qof day ma garanaysaa nabigiisii cayma ardayba. waxyaabaha dhaqan xumada ah runtii aanu ardayda ka celino weeye. sidaa daraaddeed xagga quality-ga markay noqoto imika wax rasaysan imtixaanaadka ardayda halka waxyaabaha iskuulaadka kale aanu kaga duwanay waxa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ah. iskuulkan waxaa la galaa salaada subax baa lasoo galaa, waxaana laga baxaa 9 habeenimo laga baxaa. shift buu bedelay. waxyaabaha kale aan dugsiyada kaga duwanay waxa ka mid ah saalka taala imtixaanka form 4-ka 14 page ayaan imtixaanka ka qaadnaa ardayda form 4-da. maadada ugu dambeysay macallimiinta ardayda qaada runtii maadada saad arkaysaa waa 14 pages. 14 pages waxyaabaha arkaysa inaan kaga duwanahay waa 7 warqadood oo isku rogan. 1 2 3 4 5 6 7 halkaa waxaad arki kartaan tayada iskuulkaasi leeyahay. macallimiin baa halkan jooga aada u tababaran oo qualified ah runtii. badidoodu waa jaamacadda camuud iyo jaamacadda hargeysa. waxaa kaloo halkan iyaguna 10 dheeraada ka bixiya macallimiinta bareefadada ah oo iyaguna runtii yimaadaan oo kaaba ardayda. 10dan waa form 3 week. form 3 waa 14 pages. not only form 3 clear, form 4 form 3 at the same time form 4. ...14 pages, form 4.
waxyaabaha aad ka arki karto in iskuulkan yahay iskuul teere waxaa ka mid ah alaba ardayda ka baxday dugsigan ka baxay runtii haddaad iminka eegto meelo badan bay ka shaqeeyaan badidooduna waa qualified wiigii dhaweyd waxyaabaha kalean ardayda u qabana extra curriculum activity waxaa ka mid ah dalxiiska waxaanu dalxiiskeenaa sheekh waxaanu dalxiiskeenaa burco waxaanu dalxiiskeenaa berbera waxaanu dalxiiskeenaa booraba runtii waayo ardaygu laba manhaj baa jira mid waa curriculumka midna waa physical educationka ardaygu inuu somehow kubadii sportska arko halkan waxaad arkaysaan kubado iyo koobo dhammaan xaafadda oo dhan waxaan u dhignay kubad baan u dhignaa xaafadda gebiga xaafadda 15 iskuul baan tartan ugu qabanaa isla garoonkan maxamed mooge secondary school 15ka naadi waxa soo baxa laba naadi labada naadi ee soo baxa waxaanu siinaa xaqul shaayad waxaanu magaranaysaa u ballan qaadnaa inaanu horumarino diraysiyaanu siinaa ugu yaraan ilaa 16 dirays baa xaafadda ku maqan oo dugsigu runtii u bixiyay dugsigu wuxuu ku xidhan yahay xaafadda runtii xaafadda ku xidhan oo waxa jira relationship baa jira xaafadda iyo dugsiga ama maamule dugsiga magacayguna yahay bile ismaaciil waxaan kusoo dhaweynayaa arday kasta oo dugsigan kusoo biiraya waxaan u sheegayaa magaalada waxaan u sheegayaa daawadayaasha inaana laga tayo badnayn in laga iclaam badan yahay iclaamkina waanu baranay runtii sidaa daraadeed halkan store baa ah buugaag baa yaala kole galasaan si wada tusi doonaa cambaska saadamka iskuulka imtixaan baa lagu jiraa waxaan leenahay dhammaan ardayda dadaalaysa hamigeenu iyo jabin dhibaato haybinin heermi maayo abidkiin hiilkaa lahaydeen hamashada nafteenuna gool macaan ha gaadhe abidkiina hoos mare